أخيارك شرفت له يمرياشا كلها الشعب كإمانتا نجلس وقيت المناسبة إيميلي أبا لماتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتير وفرحت وإلهي مهديس مانتي هديان اللي جلس وقيت قلي أنا جاي حدبان نضبا مناسبة دان runtii lagu cabirayo aragtida ama fikirka bulshaweynta hawiye oo runtii maalmahanba ayadoo sidaan ka yara hooseysa laakiin wanaageeda leh aan maqlaynin in la qabanayo runtii maalmahan waxaan maqlaynay erayo aad u wanaagsan oo qaarkiin ay la wadaagayeen meediyaha iyo erayo ummadda Soomaaliyeed naxdin iyo murugo ku ah keenayana dib u dhac iyo bisay la'aan ay ka muuqato erayadaas runtii qof kasta oo Soomaali ah oo muwaadin ah erayo uu soo dhaweyn karo ma ahayn wuxuu dareemi karay qofkii meel fog wax ka arka inay qof Soomaaliyeed iyo damiir Soomaaliyeed inay ahayn runtii anigu ma doonayo inaan hebel ayaa sidaas yiri hebelna sidaas uu yiri inaan iraado laakiin tilmaamaha xunxun ee aan maqlaynay iyo kuwii aan soo joognay marka aan sheego ayaad ogaan doontiin cidda tilmaantaas ayadu iskale walaalayaal mudanayaal iyo barwooyin waxaad ogtihiin inuu jiro muran badeed badda Soomaaliya inuu nagala dhexeeyo dowlad ka mid ah dowladaha aan dariska nahay oo runtii markii horeba aan niri ka baarlamaan ahaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya laguma soo dari karo innagoo dareensan danaha noocaas ah inaan iskula dhici karno arrintaas ayada ah dowladda noocaas ah ee hantidii iyo dhaxalkii ummadda Soomaaliyeed lagu haysata waxaa ku dhiirigeliyey siyaasiyiin Soomaaliyeedoo aad ogtihiin inay u saxiixeen wax qarsoon ma ahay baarlamaanka badbaadiyey sharaf bayna ay tahay inaan anigu xubin baarlamaan xilligaas ah oo aan ka shaqaynayay ka hortagii dibadda arrintaas waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo kuwii sidaas u saxiixay inay maanta leeyihiin xuduudda labada dal u dhexaysa ciidamada Soomaaliya laga soo qaado soo dhab maaha arrintaas dowladdu hadday ku adkaysato xuduudda laga soo qaadi maayo ciidanka xoogga dalka ee xuduudday difaacayaan dowladdu dambiyay gashay leeyihiin kuwa xoogga ku soo gala iyo idan la-aanta ee madaxweyne Sheekh Shariif markay suuginayeen uu ka qayliyey dacwo uma qabo qofkaas ee hadda weli baaqa ku ah dalka shaatigay doonaan ha soo gashadaan laakiin waxaan ognahay soo gelitaankoodu inuusan ahayn mid ka turjumayay ama ku qotomay mandate-ka AMISOM wixii uun kadib loo raadiyeyba dalka Soomaaliya gudihiisay ku jiraan waxay doonaanna way sameeyaan haddii la yidhi ha laga difaaco xuduudaha waxaa diidaya kuwa Soomaaliya oo ha laga qaado ciidanka waxay rabaan aduguba sheeg horasi aad dalku markuu burburay wixii dalkaanu lahaa oo warshadaha xaggee loo qaado oo lagu dhis wixii macaadin iyo maar iyo dhuxul laga qaado halkan oo khayraadka Soomaaliya ayadana xaggee loo dhoofiyey soo intaas ma ogi hadday nagu soo diraan kuwa naga mid ah ma u sacbinayna ilaa idinku dhaariy wax loo sacbinayo waxa noocaas ahaan aragnaaye bulshooy dareenkiina ka turjuma
waxa lagu haystaa waxay tahay Soomaaliya iyo Muqdisho inay cagaheeda ku istaagto oo ay dhismayso oo daaraha aad aragteen oo midaan ay ka mid tahay nalalkan aad hadda u jeedid iyo qaboojiyaha yani intaasaa dhibaysa. ujeeddadu maxay tahay markay cagahaaga ku istaagto Soomaaliya danahaagu ka fuli maayaani dumi oo ka hortag. ujeeddadu waa saas. maadaama ay adag tahay in si toosa loo dumiyo qaar ayaga ka mid ahoo dameer laawayaalaha lagu dumiyo nuxurku waa kaas. waa dhab warkaas. haddii maanta ayan qarsanayn burbur ayaa loo noqonayaa mawa runtiin aan leenahay. burburka marka waa la hubaa inaysan ayagu ka faa'iidaynin. yaa ka faa'iidaya? kuwa soo diray ka faa'iidaya. ayaa ka faa'iidaya. marka kuwa soo diray iyo cidda ay soo direen soo inaan diiddo rabitaankooda maaha. xaqiiqada meesha taallaa horta waa sidaas. waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo magaaladan dadkeedu dhibaato badan uu soo maray laakiin waxbuu ka bartay. taas waxaa daliil u ah doorashadii hadda ugu dambeysay sida shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool oo u muujiyay dareenkiisa iyo sida uu raalli uga yahay. cidda in lagaga guulaysto doorashada lagu faraxsanaa ee aad looga xumaa yacni inay xilka sii qabato. haddii maanta ay tidhaahdo cadaalad darra la sameeyey iyadoo aad og tihiin anigu baarlamaanka ka mid aha 8 bilood mushaar lama siin xilligaas. shaqaalaha Soomaalidana lama siin, ciidamadana lama siin. ma jira baarlamaanka iyo ciidamada iyo shaqaalaha dawladda cid aan hadda mushaar qaadan oo bilba ha ahaatee ay ka maqan tahay. ma jirta. hadday jirto sheeg. haddii waa run. marka haddii ay sidaas tahay dawladda sidaas wax u hagaajisay ee aniga itiri waddooyinka ee aan dhisay waddooyinkii ee aan halhal idinkugu tiri karo waa xun tahay. kuwaas waa fiican yihiin. saas miya? madaxweynaha hadda joogay aad og tihiin sida reer Muqdisho ay u soo dhaweeyeen ee isaguna ka turjumay soo dhaweynta abaalgudkeedii labada golob ee baarlamaanka aqalka shacabka iyo aqalka sare oo soo hor fadhiisto wuxuu ka codsaday in gobolka Banaadir matalaad la siiyo. ma qarsoonay? ma arkayseen? okay. labada gole codsigaas marka la ag dhigay hal golaa ka jawaabo waa ogtihiin, kan kalena kama jawaabin. taasna waa la ogyahay soo maa? markay intaasi dhacday aniga iyo labada xildhibaano hadda halkaas fadhiya waxaan goobjoog u ahay oo madaxweynuhu noo yeedhay isagoo u yeedhay labada aqal guddoomiyaashooda oo ku yidhi maadaama aan la soo dhamaystirin oo hal golena ansixiyey mid kalena uusan ansixin isla noqda oo fadhiista oo soo ansixiya ii keena aan saxiixe. ilaa hadda waa qabye. intaas ayuu yidhi guddoomiyayaasha labada aqal waana aqbaleen. inkastoo aan daahsanayno haddana rajaan ka qabno oo kamaa naaquusa. haddii uu yahay muwaadin danqadkeenna nala qaba ku dhashay halkan aan gobol kale kaambeyn u doonan iyo yani aad og tihiin bulshaduna ay sidaas u taageertay Soomaaliyana dooratay maanta in lagu handado anagu hawiyaan nahay qoliyaan soo qaadayna sax miya? dhinaca kale ka fiiriye
محمد حسين رب الهوية مهمية رئيس الوزراء صومال قدوميه قبل كان مسؤولية ديسة يأمني جيس أنا وسارية أنا هوية مهمة طولهم يا قلب ما كل عام إنه يتشكشادان حسلوني لأن أدوكتين إنت ويرو إليك كلمة ما كل عام وهذا أيوه وأوجي إنه سنكون عندنا قوة صدري أيه أمو جريان إنه شرعيات حقيقة واساس حقيقة يسكن بيان قرار سنة إلهي سبحانه وتعالى أيام لي تلقن قادر هيرون الله تلمان محير الله سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا إلى قراءة القرآن سورة الأحزاب عمر مده قبيان مده إلهي أنفسر مده لئن لم ينتهي المنافقون حتى يكفر يكتب المنافقين يقول الذين في قلوبهم مرض أي قوة قلب عذر كجروا أي والمرجفون في المدينة هو المدينة مجالدة بينتا إيا بلبغانكا كجل جلا حتى يكفر يكتب حتى يكفر يكتب لنغرينك بهم أبيضا فقدرينا ثم لا يجاورونك مركا كده انك تقول الدرس معيان فيها مجالات الإحداث إلا قليل هي المعنى ملعونين وأقوال نعلذي أينما تقفوا ميل كسو أي تقان أخذوا هلا قبطوا وقلتوا لها الذي لا داي هذه صفات كان زيانشان صفات كان هذه شان إلى أمام نوت المعمي ثلاثة قاضي مسؤوليتنا أيضا عذبا نوتيبي وإن دوري جيران أنا وزعل سالجل وعمو برحسن هاي مسؤوليين هذا الدكتور شغال كميديا أو سلطان أبو بكر سلطان عبد الله كميديا أي حاجة شغال جري أنت كران كنا أنا كون تبرو ويقول معنا ولا عائلة دولة مجد ثلاثة قال بدر كميدا وأوجيدات لكن صار الله بعض على كامل دواء يقول فلان فحسوا الإقدام ميني قف كستا وما تدل ما ينقبلون إلى أن نقولي ويجوجنا وأنت كران كنا والله درني ما أنتوا شرعية ده يسنو الكرسور كأنا يسنو والدولة النمالية أنا يسنو أو عيدا كأنا يسنو مقالة أن أمني جيدا ما الوسط جامي كلا ما الوسط جامي كلا بيري شيء جايان مقالة هو أمني وإن أعطونتا بإذن الله الكريم إلهي سبحانه وتعالى أمنك وكبرنا إلهي نور مقابل وسوها جاية وإن لك لما أعطونتا دمير الله وقو أما هذا القاعدة أما هذا مت صومالية ليس بوفسدين أما هذا الدولة عدو الله أود يكون تاجين جدا وقوة صدري لما أنت عدو اسمه تجايان وأنا لا أدري رينا أولاد سبحان الله ما أنت باقى كصوبة والصحافات كيسور سارين وعكملة وعلو قصو وأرجع دنتي وعكملة قلت لك وين لك هذا الدور هذا دوا دور هذا لا هي هلا ونجيو أو هلا قبضوا إلى هاي أو إيه لا هي الملك الدولة ده ويعني وقت كيف تتصرف وقت كيف تتصرف أنا لو إيه لا وحلو إيه لا الدور شوف في عالم ما أقبله وقت يوم تتصرف ما يني دولة تري وقت يقعد الدين متكنا السعودية اللي يقف في عالم ربنا وكان شرعي برنامج أسدي بالعمير وسعيه واتو سيدا استلمامه مركي أركان رابطان كمودة دولة الرئيس هذا هو الدين واللي سوي مثل وقته وعلى رواية دولة شدة قف عود على قدين
أي نقطة دورة الدبن ما ذي كان ربها أنت كلا قيب سبي لهين وضرك وقلي لها تفل تقلالة يسكسوكين وأقبلنا لي أبيكو صوريك صوريك اللي لا كجراني وافهم هشيس كويا لا الدولتين الدولة اللي هيسنا صحيحين معارض قيلاية مجري ولا تاجر معايا لو إيه كنت لنا هنا وياه أوكي الدولتين الدولة كلها هي الجودة وكانن هو دولة ركعتكم مغن أو شيء يجري هجيني أنا واجرة لكن هو فوكس بيني كان الأول هو كاني oo heshiiska sidiisa u raacay iyo dawladda federaalku inta loo diray ayaguna soo gudbiyey qaylanka dabiir waxa la yiri waa la kala diraa hala kala diro war haddii ay maxaa sameeyaan marka waa inaan anigu ku jiray inta soo xulayso guddiga kale waa inaan anigu ku jiro yani murashaxiintu waa inay ku jiraan waxa maanta yani ay soo saareen waa marka يعني وين الدولة فدرالك هي الدولة قبلية يدا هي مرشحين تصور الحلال واسكو صدر المالك وهي انت كبر انت عمرك فرصة بقول عليك دولة تيجي الرئيسي هي تيجي الرئيسي بقى قلت لك الدور شوي كأيها الصحولي اللي هو الدولة كنت مقلنا واللي بقى عصور رونالدينو هو حلال كهائي إيه حلوك السلسلة هاي عند أسكري يوعيكم مرسونا يعني كل ذلك هاي إذا فيك شغير هاي أيام محلو غني ووضوكتي وأسمى الله غني وأفهم غير واجد لكن عندنا وأتقى الله ما ينائيو وأهرستاقينا ومجري عندي سلاسية سنة كما معاشر وذوقيني مركا النجم مهمة دائما مسؤولية النصارى وحيتا ولا ريالو magaaladan iyo dalka Soomaaliya 4 sano kadib inay doorasho ay ka dhacdo ama ha ahaato mid dadban ama ha ahaato mid toosa wixii ummadu ay isku raacdo inay ka dhacdo haddii ay dhici weydo oo fawdo timaado sida hadda yeeraysa maxaa dhacaya marka waxaa dhacaya dawlad la'aan waxaa dhacaya fawdo waxaa dhacaya dhibaato waxaa dhacaya baahi waxaa dhacaya cudurro waxaa dhacaya burbur ma jeclaan karnaa marka waa inaan did qofku marka haddii doorashada soo dhawaatay oo shardi kasta oo loo aqbalay oo doorashadii ay soo dhawaato oo cabsada marka waa banadaa u taagan yahay banad waa u taagan yahay marka بلد واحد دولة ورنتي مالان دايم دولة ودعيسا سيدنا بضعي ودعيسا وحي كدعيسا هلكا وحي كدعيسا دولة قبلات أي كدعيسا بإذن الله الكريم وقت قال دعيسا وفر استاقي كراه رمجره لكن أنا هلكا أنا وعليه ويدياه هلكا بإذن الله بكل صعنادا دور الشو حلالة أو تيسو دعجة كهفا ayaa dhacaysa oo mas'uuliyadana saaran ay lagu waajibinaysa walaalayaal waxyaabaha ay soo saaraan waxaa ka mid ah hebel halkaa ka dhow waa run waxay soo saareen maanta hebel halkaa ka dhow waa inuu xilka ka dhow waa fahamtay marka hebel xilka ka dego ayagu xaq u male hebel haddii la doortana waqtigii la doorta u sugayaa haddii la magacaabana ka dejinta cidda magacawdaa iskale waad maqasheen beryahan waa alifeen waxay yidhi cumar xilka waa laga qaaday waa maqasheen maana waa laga qaaday ayagaa iskale ayagu ka yimid sababtoo waxaa la yidhi ninaan fawdo yeelay waaye fawdo ma yeelay aniga haddaan idin sheega ma yeelayo waa fahamta bootada ay akrinayaanna afka soo dhaafi mayso carka soo dhaafo hadday soo dhaafto maxaa dhacay hadday soo dhaafto maxaa dhacay hadday soo dhaafto waxa dhacaya meeshii laga soo diray ayay u carari doonaan
warkaa iloobina halka laga soo diray dulmi marka la soo diro oo uu jabo meesha laga soo diro oo u qaxaa meesha laga soo diro array xaqeeb waaye warkaas iga qora intaasaa rabaa inaa ilaa doortada waa dhacaysaa waxaan rabaa marka bulsho weynta halkaan isugu timid ee garashada fog leh ee beryahan oo dhan ku celcelinaya hadalka inaan si gaar ugu mahadceliyo waxay muujinayaan bisaylka bulsho weyntan iyo sida la rabo qofkii si saxa wax u waaya inuusan sidoo rabo u isticmaali karin ayay muujinayaan taasi marka cid kasta oo doonaysa in magaaladan horumarto cid kasta oo doonaysa in bulshadaan horumarto waa farxad gelinaysa dadaalkiina sii wada dadnimadiina adkeeya magaaladan dan waxay noogu jirtaa inay dhisan tahay system iyo dawlad shaqaynaysa la helo wadooyinka aan dhisno wadooyinka waan dhisnay kuwana hadday socdaan inta kalena waan dhisaynaa iga qora warkaas beelilah kariim 15 bilood ay joogaa oo bishaan 15 ay tahay 6 wado waa dhisnay 6da wado kuwa hore loo dhisayna way jireen laakiin ma badnayn haddii aad og tihiin ماير اللي وضب ديزاين دميستر انت بالله عليك شيء ودد كده حبسك الدحى محكمتها مرتيري صوم مرتيرا وكان دموسك انت رجع دينا دميستر بين ميا من دقيقتين كبوليس كأنا سكوز كمرين عم كل جيلي وعن كل جيلي بدأ ليلة عرتوبتي ما تسرون تسرون ما وحن كل جيلي ودد بار أيام كسر بالله إلى بار أيام لقى صوب بالله سينا يصوت ودد جيلي داود إلى تدير كتحصل أفر صوب ما لما ودور داينين أبودك لح صوما سدحنا وعندك عندنا هدي صوتا سدح ناس والجبة إلى أفر تجير ديلو سيسعو إلى توفيق هل كان والله ولا حاجة ولا صولا وعلى سوكينا أفر تجير بين مياه مسوا وحرور بس وعركة وها دقة حديقلون هذا أيضا باللابن إيسا مرتيني كسوة بالله بيارس اللي بربع الله أكتيسا بعد نبض السوقات إلا فنقية دحي شغل اللي مسوق قاري ودد استحال وهذا السقطة وسؤال كثير وودد المدينة كتك تأربورك كورنتلا إلى حوش وكسر إلى إكسكونترال أبوين جيني haddaan fursado helno oon iska baxno la dhihin intay isbedeli maalana hal sana halay qabto wado aan dhisnayn haddii la arko anaa beenaala insha allah waxaan ku soo haray biyaha wadooyinka fariista meelihii biyaha ay fariisti jireen loogu talagalay waa la dhistay laamigaa lagu soo moostay suwajkii dhulka ka hoos biyaha marsin jireen waa burburay dhibaatadaas markay dhacday cid kasta aan albaab ku garaacnay waa lacag badanto waa $300 milyan naleeri annagaa isu tashan waa wadnaa iyadana biyo fariiska boondheere suwaydanka soo saarnay baddaan gelin midka number 4 iyo warta siigaalada hawsheeda haddaan wadnaaho bintoore agteeda ayaa hadda qoditaanka uu noo maraayo ay ka socotaa kuwan wadooyinka muhimka waxay kaloo ka socotaa hadda wadada Yardumeeri oo iskuul bilisiyo marta oo biyo fariistaan ayadana waa ka wadnaa waa gabagaba wadada dhammaan marka waxaa wadooyinkan dhisayno noo dhinac socda in sewage systemkiina aan ka shaqeey cid nagu taageertay oo shisheeya la mid waa isku tashi welcome, please. Waruntis, jidka
soddonka oo hore loo dhisay oo laamir nadiifa laga dhigay waxaa u dhawaay meel war ah oo biyuhu fadhiistaan ayaa u dhaweyd wartii biyihii markay bateen oo roobabkii bateen roobabka hadda aad u bateen waa ogtihiin hadda labada shabeeloo dhan biya waa baday noqotay dooma lagu socdaa maadaama ay sidaas noqotay biyihii markii warkii buuxsantay cidahay u galeen cidihii waxa way iska soo qooseen iyo laamiga soo dhigeen saas maxaa noqon kartii laamigay yaalleen biyihii laamigay yaalleen intay ka yimaadeen wartii waa bulo dhaaftay waa la soo moosay laamiga lagu soo moos taa sheegaya dato waa ogaa bris waa ogaa arrintaas marka dhibaatooyinka jiray ka mid taha laakiin ogaada dhammaan mushaakilaadkaas oo dhan xalkeeda waa wadnaa maalinta laguma xalli karo marka waa dhammaystiraynaa mid walbana qorsheeda waa haysanaa tijaabo kasana waa samaynay hataa ceelkiigaan qodnay oo warda biyada lagu celinaya injineer nookeen marka biyaha biyo dhiiqa wata waaye oo iyo ciid fara badan ceelashii guri gaaraa biyii waa la qaayan laakiin markii biyo ay bataan dhiiqa wada ciddii ceelka ilihiisay duugeen biyi waa soo noqdeen marka waxaa laga maarmaan noqotay marka in suwajkaas wax walba lagu dhamaystiro taasna sidaasaan u wadnaa waxyaabaha kale oo hareer socda oo dhismooyinka ah oo ama suuqyo ah ama goobadalgooda ayagana waxaan halkan kusoo koobi kara maa laakiin waddooyinka waa u muhiim halka kilomitr $1 milyan waa wax fudud maa marka intaasaa raba inaan idinla wadaago magaaladaanu marka waa qurxin iyo nuurin ee uga darid ma aha dadaalka noocaasa marka cid kastoo rabta inay gadaalo celiso hore u dardaraynaa marka aan waa dardaraa leeyahana cidaan kaashula waa adiga ida kalama billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan